wariyaha laga maagay ee mas'uuliyiintu ay ku dhici waayeen inay u bareeraan weydiimihiisa dadka hagada u yeela ayuu maareeyaha madbacadda qaranka Maxamuud Raage kaga dhigay liibaaxa ninaan aqoon ayaa la xkarita dabadeedna waxa ka dhacday shaydo dhaxan noqon wariyatay warinimada meel ka dhaxan noqon warqad amray soo direen arinta kulmi ahaydeen ee aad la socotay siilayana inta in ka badan boo sameeyeen mudaharada dhigi jirteen soo baxaya dhigi jirteen waxyaabo badan ba sameeyeen jirteen tii ba maanta taagan intii ba maanta taagan waxa la soo qaaday tusaale ahaan madaxweyne Muuse Biixi waqtiga uu mucaaradka guriga Sacuudiga ku urursaday hub dhigtay halkaas uu difaac ka galay inta si ay dhida looga yeeray wixii intii in la mida in la idinku sameeyo xawaq baladi انت هيكون قريبه كل شيء حوق بالله انت بدحين مصبيح عادي انا يوكي بان انت اقول لك هذا ودين ما اربع اوفيسر كاها كيدو بيجي اوفيسر جومنت اوفيسر بان لو كسو نقو مid waxaan haadeen maar waxaan 11 years baan ha case translator asaan si waxa doonta ta kuma naaweydi Soomaaliland dastuurkeeda iyo shuruucdeedu Soomaaliya oo gol yahay in la mudaharaado andamaade dawladda aragtidooda cabiraan Maxamuud Taawson aad iga dhamayda waad iga dhaxisay dadka traffic light ku jiray askarigii la hadlayna lagu xagu ku yeela traffic light sida Soomaaliland ma ka jiro waa jirtay askarigii hor taagan ayuu jiray lugtaas ka qabqalkaas ku tuuray suuq waxaan marayay waa daba taagnaa hargeysa aanu isu soo eriyayna qabtay maaskari baan maxay geeyay shaqada moorarka aniga moorarkayga xukuma sharci xukuma kowde moorarka sharcigu xukuma hadii forbidden la soo saaro sharcigu may anigu golay dhexe kulmiyaa ba ku jiray maxaa golay dhexe kulmiyaa ku jirtaa khalada may waa ku jiray waada ku jiray waa sigtay dadkana maantiida way waa la sigay waxa lagu sigay warbo jaarkeena waxa ka dhacay wada kiisa farxida dhacay wada kiisa dhibaatada taagan wada kiisa dad hurdaa jiray cadow baynu leenahay war ma cadowgeena noo loogaya Maxamuud cid cadow loogtay oo anagu aan aragnay ma jirto dad si selmiya u soo baxay oo hubsidan oo rasaasidan oo dhibaato wadin oo soconaya oo fikirkooda dhiibanaya oo rasaas la dhacayo oo la leenayo aan aragnay taasaad Maxamuud intaas kaliya dafaysa سيدو adigu anaad igu lahayd anu dhan waaba noqon kara kuma diibaana adigu adoo wariyaaba dhan noqon waxa soo dhan baa hor yaala dadka oo aan la arkayay doorashadu qabanayna aad leedahay maxay ka soo dhacaysaa waxa suurta galaysa in dalka xoog iyo buuq iyo rasaas Muuse kursiga laga soo dejiyo oo nin la gilbinayo Cabdiraxmaan oo kale lagu fariisiyo oo annaguna aanu adeecno Soomaaliland jirto ma taasoo suurta galaysa هذاك ودينا سؤال بدي ما كنت أقول مثلا ما يمنع ما عاد مسورته جلسة مسورته جلسة أشياء هذاك جوابية أحمد محمود سيراي أيام وحنا كويلي إنه والله شرينا والله إنه لو شرينا أيام نقدر يراه وكويلي أحمد وحيو أكتر إن هذا حبيس كعلمي وحيو أكتر إن لقاعد كعضي وحيو أكتر إن فرح برور كويس أكتر أنا قاعد يراه وحسك علمي ما كنت فكرت مرة إن الليدر شيب كبرنايسو wuxuu ku jawaabay wuxuu yiri ayuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu qabtay laba doorasho isku sidkan hayga dhigin laba doorasho isku sidkan buu qabtay dhaqaalaha ay naga galay labada doorasho isku sidkan maanta ma guriyina kala timaadeen dhaqaalaha golihii wakiilada dib looguma celin xeerkii amadna laguma sameyn lama dhameystirin waa maxay xeerka lagu galiya haysa doorashada la qabanaya aad leedii waxay ka horeynaysaa madaxtooyada halka maxaa lagu galiya qaranka Soomaaliland baan duminaynaa waa sidoo u dhigay waa naga wuxuu yiri waxa naga dhamaaday Cabdiraxmaan waxa ka dhamaaday dulqaadkii waa nin dul badan Cabdiraxmaan I agree with him Cabdiraxmaan dulkii baa ka dhamaaday waxa kale oo ku araartay waxaanu qaadnay wadadii burburka toddoba mar buu yiri waa la burburaya warma waxa loo burburaya waxa lagu burburaya dayladin leeyahay maya xawdeen la maya baloorkayga eelaf weyn waxa la siistaa $500 laamiga saarna waxa la siistaa 2,000 ama 1,000 qadar yare Maxamuud Heego ku dhashay ama deegaan buu ku yahay baloorka 50,000 baa la siistaa 50,000 baa la siistaa Hargeysa waa wada dhisan aan kuugu daro صوت هديني محمود هيبي محمد موجي محمود هيبي محمد موجي قدر يرى ولا شيء
وروح اسكو هيسان سوق خلاص هي بلون على ستة ما واقع ما كلا هذا دب كوان نبض كوان ذلك النبض كعلنا كلا هذا محمود هيبي محمد موجي 20,000 students أرضيو إنستيتيوت بعد جاني سكولنا ما أنت معناته أوران الهابا يسقو أنا جيجي بنك دجناية وحبها هيسنة إذا هيجي سكر قني يبا له ورهالك هرجيسي هينقدو منه ما أنت هرجيسي كعلنا يا سجى ما أنتوا بين إنه سمايو شاقة كوكو يقول لي سورنا يا محمود هيبي بدي سعري شاقة اللي يوجو حاجة اللي يوجو ما أنت حس مساجد إلهي ورد يسوع ما أنت حس إنه مساجد إلهي تبغى هرتيسي قبلتي باور كل عيورنا يقول لي يلا صور يعني هاي وأنا مساجد محمد ما هرب حقوق بعوائل وأنا محور ورد يسوع يعني إلهي يعني كجواب مساجد كقولي يسوع كيالا سجاد السي وحقود عي وحقود عي قارو وحقود بعوائل وح كستو سياسة أو الأسبوع يوال حل كرا every problem has got solution but not by using force يا حوق استعمال سوء حكومة يعيد عيدا ماذا هيستا يعيد الدقالة ميسا يعلوها كتوغر صدد كما مظاهرات صوت كوا ما حد حوق استعمال مظاهرات كوسونو مظاهرات كو شرعي ما هي دستوري ما هي حيرك iyo qawaaniis dalka u talaamo ogoliin kuwa shalay ku adkaysanteen ku mudaharaad seen ku dagaalamay ma yahay well very good question yeerdagis laba waxaynu ku eegaynaa mudaharaadka laba halbeeg cabir bint ana ku eegmayna mid ku leeyahay adiga qasbide ana mudaharaadka kala hadlaya okay qofka example bixi leeyahay kuwii xirsiye markuu chief of cabinet kan bixin lahaa سيسوى مركز الدين سكول ما حبقله كلام شيء سنة من تستأذن بعض الحياة إلى قيامية عشان كويدي وحوي حسب داقي باش هذه حسب داقي سيدة يا لحظة أنا وحن أمسنا وحتى مريمة بعد قرنك مريم شاعر اسمي شجود وحصل موانا فرتك وسيفر سيرفنت وسياسة ديك فوقي شغلكم لها سياسة وحنا ضحفة إذا أنا سياسة صح أكو غلط شرعية كو غلط سياسة I love that question شرعية كو غلط سيدو in 1994 in 1994 أفصالي كو هذا دتك أفصالي وش بعد شغال بقولي سجال سنيات أي سياسة كتير ما أنت سيفر سيرفنت صرت يدقيس وحش خالته ما صرت يدقيس صدق السؤال هذا ما كان ودي سكات اسمه هذا الشيء كرد قالوا حتى ما بربطه لاني انا لو كان انا لو ما كان عرفتها وانه ما سو غاري لكن وين سعوتها والله سعوتها شرر بال عيب ايش هذا قبصتي حق باب الصوله سلام بحي ارنت حراره والله تكون بحي مeel bay gaadhay xaraaradeedu waa wax jira yada farisa kursigii gudoomiyenimada xisbiga kulmiye beeshii aad ka soo jeeday bariga burcad lafteeda isku haysa oo beeshii bariga burcad ka soo jeeday lafteeda ayaa reer ahaan isugu haysa leeyahay oo maxamed iyo muuse taas ka wariyada oday baa tahay reer Soomaaliland waxa sheegteen nabadda iyo siyaasadda muddo badan ka soo shaqeynaysay xaaladdu meel adag bay maraysaa dad baa dhaawac ahood rasaas la dhacay maalintii dhaweed xukuumaddaada iyo madaxweynahaaga maxaad talo u jeedinaysaa ila dhinacuun ha ku ciirin oo dhinacaanuna ha dhaliilin dhinaca kale maxaad odhanaysaa iyagana barnaamijka sayidka iyo siyaasiga ayaad ku daawan doontaan waraysigan oo dhammaystiran habeennimada isniintu soo galaysa ee maanta oo kalena ay axadahayd waaba maalintii weynayd ee 26 Juun saacadda bariga Afrika marka ku beegan tahay 9:45 daqiiqo habeennimo